بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، إخوة الإسلام، موضوع فقه الأقليات الإسلامية اللي يراده وموضوع هذا قد بلارا وحما كتر تلمامي دونه. waa mowduuc aan isleeyahay isaga keligii baa mudan in 2 ilaa 3 mu'tamar iyo kulan loo qabto sanadeed, sababtoo waa mowduuc taabanaya muslimiinta dunida ku nool ugu yaraan 3 meelood meel oo kala duwan oo ku nool Afrika, Asia, Europa iyo Yurub, Amerika, dunida dhan ku wada nool. qolo walibana qaybo badan oo noloshooda ka mid a taabanaya oo khuseeya. saas darteed mowduuca si guud aan u tacriifiyo, qaybo ka midana aan wax ka tilmaamo masaa'ilka soo gelaya, waan u malaynayaa waxa ugu badan ee aan caawa samayn kara inuu yahay. marka arrinta koowaad, dhowr arrimood baan ka hadlayaa. ee koowaad, maxaa fiqhu aqaliyaad looga jeedaa wey. insha allah waxaan ku xijisiin doonaa aqaliyaadku sida ay ku dhasheen iyo muslimiintu aqaliyaadkoodu sida ay ku yimaadaan qaybo ka mida. mowduucan sababaha keenaya in ahmiyad uu leeyahay gaara oo tixgelin gaara dadku ay siiyaan, asbaabaha keenaya qaybo ka midana waan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo. waxaan tilmaami doonaa ninkii rabaa inuu diraaseeyo baabkan, kutubta laga qoray qaybo ka mida waan tilmaami doonaa si qofku uu u raadiyo ama wixii uga baahdee masale ay kala soo darasta oo kutubta dib ugu noqdo u muraajaceeyo. insha allah waxaan wax ka tilmaami doonaa masale la xiriirta oo la yidhaha axkaamu diyaari waalhijra, oo aqaliyaadka masale lafdhabar aada ula xiriirtaa. waxaan wax ka tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo masaa'ilka ay taabanaysa diraasada marka laga hadlaya ugu muuqasho badan aqaliyaadka muslimka fiqiyaadkooda, oo qofku ka dhex sawiran karo ilaa waqti intee la-eg bay u baahan tahay in lagu bixiyo oo la geliyo si masaa'ilkani ay u caddaadaan. kolba waxaan filayaa mas'aladan muxaadaraadka iyo mu'tamaraadka la qabanayo maanan maqli jirin magacan. muddo dheer baan u malaynayaa Afrika iyo Yurub ilaa Australia inaan arkayay mu'tamaraad iyo muxaadaraad la qabanayo. cinwaankan iyo mowduucan maanan maqli jirin. muxaadaraad baa aqaliyaad musliman loo baahan yahay iyo magac la mida. laakiin waxaan u malaynayaa waa dhaweyto su-aalo iyo qoraallo bay ka dhalatay baan u malaynayaa. ka dhalatay caawa keliya waxaan xoogga saarayaa masalada xajmigeeda iyo meelahay taabanayso inaan wax badan sawir ka bixiyo si waxa laga hadlaya loo fahmo iyo intuu leeyahay baaxadiisa iyo ballaciisa. masalada koobaad aan ka hadlaya waxaa weeye aqaliyaad islaamiya maxaa looga jeedaa. masalada muslimiintu markay meel ku nool yihiin sidii aadamaha kaleba ugu baahan yahay dhul iyo ardo uu ku noolaado, meesha ay ku nool yihiin 2 mid bay noqotaa. imaa inay keligood ku nool yihiin oo imaa in dad kale la nool yahay. haddayba waxaa ku nooli muslimiin keliya yihiin, dee aqaliyad maaho waaba iyaga keligood. haddii lala nool yahay iyadana haddaynu fiirinoon qaybinna 2 mid bay noqotaa. inay iyagu hoggaanka iyo maamulka leeyihiin ama ha badnaadaan
ama ha yaraadaan iyagoo tirada badan leh oo hoggaanka waddanku muslimiin iska leeyihiin way badan tahay dunida iyagoo muslimiintu yar yihiin oo laga badan yahay laakiin hoggaanka iyo talada waddanka iyagu ay leeyihiinna way jirtaa laakiin way yar tahay afrika waxaa ka mid a waddankan gabon oo kaleetaa ka mid a muslimiintu tiro ahaan waa laga badan yahay laakiin hoggaanka iyo madaxa iyo waa maamulka iyagaa iska leh saa darteed bay gabon waxay ku jirtaa manduumada iyo ururkan la yidhaahdo almu'tamar alislaami dowladaha muslimkay ka mid tahay muslimiintuna tiro ahaan waa laga tiro badan yahay laakiin iyagaa hoggaanka iska leh haddii muslimiintu aynan hoggaanka lahayn laba mid bay noqotaa in laga tiro badan yahay hoggaankana laga haysto iyo in hoggaanka un laga haysto oo iyagu tiro badan yihiin iyagoo laga tiro badan yahay hoggaankana laga haysto halkan aad joogtaan baa ka mid a muslimiin baa degan muslimiin baa jooga lagana badan hoggaanka iyo maamulkana laga leh way dhici kartaa muslimiintu inay badan yihiin laakiin maamulka iyo hoggaanka gaaladu ay ka leeyihiin taasina meelo badan bay ka jirtaa waxaa ka mid a nigeria waxaa ka mid a tanzania waxaa ka mid a etoobiya waddamo badan baa ka mid a haddaba xaaladahaasay muslimiintu markay dad kale la degan yihiin intaasoo suuray qaadan karaan haddaba teebaa aqaliyadu ma tiraday ku salaysan tahay ciddii dooniba maamulka iyo hoggaanka ha lahaatee mise masalada waxaa lagu salaynayaa hoggaanka iyo maamulka yaa haysta ciddii dooniba ha badnaatee labada mas'alo baa inaan qeexna u baahan si aynu u meeldhigno aqaliya islaamiya maxaa looga jeedaa labadooda midka la eegayo waa laba madhab oo culimmadu ay leeyihiin raxmat ullaahi calayhim jamiican culimmada muslimiintu waxay isku hayaan xukmu markii daartan la leeyahay waa muslimiin iyo ma aha waa aqaliya laga tiro badan yahay iyo ma aha maxaynu ku salaynaa culimmada qaar waxay leeyihiin tiradaynu ku salaynaynaa muslimiintu hadday boqolkiiba 51 gaaraan aqaliyo ma aha aqaliyo sida erayguba tilmaamayo dad laga tiro badan yahay oo alaqalu yar weeye halkaa culimmada qaar baa maraya saas darteed waxay leeyihiin axkaamtani iyo fiqiyaadka aqaliyaadka laga hadlayo ma khuseeyo meeshay muslimiintu tiro ahaan ay aqlabiyadda badan yihiin culimmadanu qaar ka mida waxay qabaan yaa meesha haystay ku xihan tahaye yaa tiro badan ma laha tiro badanoon waxtar lahayn tabarna aan lahaydoo hoggaanka iyo madaxa laga haysto wixii la raba laga samaynayo badnidaa macna ma laho guhaaunka guhaa'i sayli wey cidda siyaadada iyo xukunka haysata weeye masaladu khilaafkaasi iyagu waxay leeyihiin marka erayga aqaliya erey ka fiican baa jira oo aqaliyaat lmuslima dadka laga tiro badan yahay dhihi mayno maxaynu dhahaynaa magacyo kalaynu u raadinoo muslimiinta fii hayri diyaari lmuslimiin aan dhahaynaa muslimiin aan meel muslim joogin baynu leenahay eraygaa markay cabirayaan mas'aladan waxay u celinayaan masalatu axkaami daar daartan markii la leeyahay waa daaru islaamin iyo waa daaru kufrin ma waxaa loo celinayaa yaa maamulka iyo hoggaanka iyo axkaamteeda iska leh mise waxaa loo celinayaa asbaab kale iyo tiro iyo deegaan iyo asal ahaan dhulka yaa iska leh baa loo celinayaa khilaafkii ahaa jamhuurta ahlulcilmigu waxay qabaan in xukunka iyo siyaadada loo celiyo oo meeshan yaa maamula taladeeduna yay gacanta ugu jirtaa ah waxayna leeyihiin madiinatu rasuulillaahi sala allahu alayh alih wasalam markii nabigu yimid waxay noqotay daara islaamin dadkii taxaalufka iyo isbahaysiga la galee reer yuhuudi iyo mushrikiinta ahaa baa muslimiinta tiro ahaan ka badnaa laakiin maamulka iyo talada iyo go-aanka baa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu iska lahaa iyo muslimiintoo tabac u ahaa isaga saasna daaru islaamin bay ku noqotay
waxaa kaloo leeyihiin diyaarta waxaa loo tiiriyaa hadba xukumkooda saa'idka ee maamula waddan waxaa iskale ninkii xukumo ee maamusha wuxuu rabana ka sameeya meeshuu rabana u jeediya ninkaasaa waddan iskale bay leeyihiin calaa kulli xaal qowlkaasi waa qowlka jamhuuru ahlilcilmi ay qabaan culimmada muslimiinta iyo fuqahadeennu u badan yihiin xukumka daarta in siyaadada iyo xukumkeeda maamulkeeda yaa iska leh la raaciyo dib baan masalada intaa ka badan ka tilmaami doonaa axkaamu diyaar markaan tilmaamayo insha allahu tacaala masalada jamhuurta haddii la raaco aqaliyaad waxaa la yidhaahdaa muslimiin kasta oo ku nool meel maamulkeeda iyo xukunkeeda looga awood iyo itaalroon yahay oo iyada haddii aan la eegin yaa tiro badan yaa tiro yar qowlka jamhuurtu sidaasuu noqonayaa qowlka kale culimmada kalena wuxuu noqonayaa tirada basantajka iyo nisbada mi'awiga ah boqolkiiba 51 yaa iska leh hadday muslimiintu boqolkiiba 51 gaaraan aqaliyad maaha labadaa qowl weeye laakiin kutaabta iyo mucaashiriinta ragga wax qoraayay in kutubtooda qaar tilmaami doono waxay u badan yihiin qowlka jamhuurta in la qaato halkaa masalada koobaad waa waxaynu ka hadlayno waa dad muslin ah oo gaalo la nool maamulkiiyo awooddiiyo tabartana looga awoodiye itaal roon yahay maxaa la gudboon axkaama oo la xiriirsanaysa way waxaan ka hadlayno waxaa ban musbaqan inaan ogaano asalku waxaa weeye qofka muslimkaa waxaa waajib shariicada kaga ah had wixii markii uu dhulka muslimka ah joogay wixii waajib ku ahaa baa waajib ku ah markuu gaalo la joogo ilaa wixii sharcigu soo reebo ama tacadur noqdo uu awoodi waayo maahane wixii uu ka cajizo ama sharcigu soo reeba labadaa waxaan ahayn asalku haddaad dhul muslimiin joogto ayaad dhul gaala haddaad joogto waajibaadka iyo muxaramaadku waa isku mid ugu dhihi maayo salaadu markaad waddan muslim joogto waa waajib laakiin markaad koonfur afrika timaado salaadda waxa waajib kuguma la dhihi maayo khamrigu xaggu xaaraan ku ahaa iyo halkan xaaraan ku ahana ma ahana lagu dhihi maayo laakiin waa masaa'il khaasa waxa laga hadlayo oo asalkoodu siyaado iyo maamul u baahan ama ku xiran masalada labaad ee rabnaa ka hadla waxaa weeye muslimiintu meelaha looga awood roon yahay sidee bay ku timid in muslimiintu ay ku noolaadaan meelo laga awood roon yahay maxaase sababa inay xaaladaasi dhacdo asal ahaan waxa sababaay waa quwada iyo dacfiga muslimka muslimiintu markastoo ay xoogaystaan oy awooddoodii iyo itaalkoodii qabsadaanna way ka baxaan axkaamtan mar kastoo intay burburaan ay daciifaan ay sidii hilib bisiloo la boobay oo la qaybsaday noqdaan ama ay awood iyo itaal darreeyaanna axkaamtan ay galaan nabigana calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisu islaamka bilowgiisii inta ay yaraayeen dee waa laga awoodiye itaal roonaayo makana gaalay ku hoos noolaayeen kuwii hijrooday xabasho iyo meelaha aadayna dee ardul xabashoon muslin ahayn bay ku hoos noolaayeen kadib markii nabigu hijrooday calayh salatu salaam madiine tegey uu xoogaystayna dad madax bannaan oo daartooda leh bay noqdeen quruun badan bay muslimiintu ku soo socdeen goortay bilaabatay in laga adkaado oo la jebiyo oy khilaafadoodu burburtana dee boobkii la boobee la kala qabqabsaday bay xilligii laga awoodiyey itaal roonaa dib ugu noqdeen qaybo badan oo ka mid a saddex qaab bay ku timaadaa muslimiintu meel laga tira ama awoodiyo itaal roon yahay inay ku noolaadaan saddex qaab bay ku timaadaa qaabka koowaad waa dad waddanka ahaa oo waddankoodii iyo dalkoodii asalka ahaa joogay ku islaamay wey waa South African halkanuu ab iyo awow ku dhashay halkanuu ku islaamay meelana kamuunan aadin ama ha heli karaan ayaanu heli karinba masaladaa waxay keentaa dee dadkii gaalada ahaa ee badweynta ahaa ee ummadda dhan ahaa in yaroo ka midoo islaamtay oo halkoodii sii jooga aqaliyo way noqdaan qaab labaadna way ku timaadaayo inteena fadhidoo kaleeta ah inay muslimiintu waddankoodii intay ka soo qaxaan ama ka soo safraan ay waddankii gaalada degaan way dhacdaa
duruuftaa iyo qaxaasi wixii dooni ha keeno kama hadlaya taasada laakiin gunaanadka natiijadu waxaa weeye sabab kastaba ha keentee intiinan intaa waddankiinnii ka soo cararteen oo ka soo qaxdeen baad hadda gaalo la degantihiin masaajid baa ku leedihiin ganacsi baa ku samaysateen waxbarashadii baad ilmihii geliseen idinkii guryaha ka dhisateen qaarkiin laga yaabo waa degteen waxaa laga yaabaa qowmiyado kalea idinka soo horreeyey kuwo kalena inay idinka dambeeyaan baa laga yaabaa gadaashin yimaadaan iyana waa dhici kartaa waa qaab ay ku timaada muslimiintu meel laga awoodiyey itaalroon yahay inay ku dhex noolaadaan qaabka saddexaad ay ku timaado waa iyagoo muslimiintu dalkoodii iyo dadkoodii jooga inta lagu soo duulay in la qabsadana waa dhici kartaa sida middan hadda aan ka nimid annagu oo kaleeto kenya dowlad iyo imaaraad islaamiga ka jiri jiray ay ugu dambeeyeen qoladii cumaaniyiinteeda saciid barkhash ay ugu dambeeyeen waa dagaal baa lagaga awoodiyey itaalroonaaday waa la qabsaday qasabna waddan baa loogu daray haddaba way dhici kartaa muslimkan inuu muslim yahay waddanka uu joogana waddankiisii yahay laakiin xoog lagu qabsado lagana awoodiyey itaalroonaado sidaa haddii ay dhacdana de axkaamu alaqaliya way galaan saddexdaa nooc oo dadka ka mid ee asbaabta wejiyada ka mida bay dadku ku galaan inay aqaliya islaamiya noqdaan masalada labaadee duruufada ay ku dhalatay iyo qaababkay u dhalatay aqaliya islaamiyana intaasaan kaga baxayaa ahmiyada mawduucan uu leeyahay mawduucan ahmiyadduu leeyahay dhowr qodob baan ka soo qaadanayaa marka koowaad saan tilmaamay waxaa badan dadka muslimiinta ah ee meel looga awoodiyey itaalroon yahay oo gaalo ah ku hoos nool baa dunida fara badan ninkan mu'arikha maxamuud shaakir isagu wuxuu leeyahay muslimiintu boqolkiiba 50 tiradooda adduunka marka la tirakoobo aqaliyaad wey halkaas isagu maraya laakiin ragga baaxifiinta ka dambeeya waxay u badan yihiin tirakoobyada iyo ixsaa'iyaadka dunida markii aad akhriyaad fiirisaay in ay muslimiinta boqolkiiba 3 meelood meel ay yihiin dad aqaliyaad ku hoos nool haddaba axkaamtan aqaliyaadku wax ugu yaraan boqolkiiba 3 meelood meel muslimiinta axkaam taabanaysay u baahan yihiin wey waa axkaam mudan marka in laga hadlo in la bayaaniyo sababta labaad ee keenaysa ahmiyaddeeda waxaa weeye masaa'ilka cusub ee dhacdooyinka cusub een horay culumo uga hadlin baa aad ugu badan waxaa keenaya masaa'ilka dhacdooyinka cusub inay bataanna waxaa weeye islaamku ka diin iyo shariico ahaan marka uu la hadlaya mujtamaca muslimka ka ummad iyo mujtamac ahaan sawirka laga hadlayo axkaamta shariicadu waa mujtamac muslima oo taagan oo hoggaankiisii iyo maamulkiisii iyo madaxiisii leh oo xuduuddii iyo sharcigii ilaahay ilaalintiisii iyo ku dhaqankiisa raacaya wey masalada aqaliyaduna waa qolo tabacoo baabuur dabada ka saaran baabuurka waxaa wata dadaan ilaahna aan ka baqaynin shariicadiisna aan rumaysnayn nabina aan raacaynin axkaamtooda dhaqankooda maamulkooda xeerarkooda noloshoodu wax kuma salaysna inay meel kaga soo dhacda waa dhici kartaa diin islaam laakiin waxba kagama salaysna qofka muslimkaa laba buu u dhexeeyaa marka muslimnimadiisii iyo axkaamtii iyo sharaa'icdii fulinteedii way u taallaa baabuurku gadaal ka saaran yahayna jidkii ma hayo nin kalaa darawalka oo meel kaluu saaran yaho qawaacid kaluu raacaya haddaba saad saa ugu socotay axkaamta islaamka baad meel soo dardaraysaa jira ah jidka islaamka haysay baa lagaala jireenay gari waka jidkii baad leedaha marka lagaala leexay xaggaad socotay wuu kula leexday waayo sistamka iyo nudumka nolosha ee ka jira hadda waddankan aad joogtaan oo kaleeto miyaa lagu saleeyaa islaamku muxuu ka qabaa ilahay raalli ma ka yahay adigu waxaad rabtaa haddaba waxaan nahay nin qoyan biyo ma iska dhowri karaa xaaladda sidaas oo kaleetee darafka adag wuxuu keenayaa noloshii mar caafimaad bay geli mar waxbarashay geli mar guur bay geli mar cibaadaad bay geli mar siyaasad iyo xukun bay geli mar ganacsigii bay geli mar masaajid bay geli wartan maxaa laga sameeyaa waa wadci iyo daraf aan loogu talagelin axkaamtii shariicada ahaydoo de hoggaankuba uusan raacsanayn adigoo shacabana inaad raacda aad doonayso
waxaa dhacdooyinka iyo mustadajaadka nawaasisha la yiraahdo baa aad aqaliyaadka ugu badan wasaa darteed bay mudan tahay muslimiintii boqolkii 3 meelood meel baa saa haysataa nawaasishuna ku badan tahay waxaa sababka saddexaad la dhihi karaa miyadu tilmaamaya maadaama nawaasishi ay badnayd culimada muslimiinta ahna ay ku yar yihiin meelihii aqaliyaadka ah waa ku yar yihiin oo aslaan culimada muslimiinta ee marjacan noqon kara ee nawaasisha waaweyn wax ka qori kara wax ka dhihi karaay aad bay ugu yar yihiin meelihii aqaliyaadka waxa soo gaaray marka nin wuxuusan la noolayn oo nolol maalmeedkeeda uusan taabanin baa inba si qaaba wax loogu geynoo wax loogu sheegayaa qoraallo iyo fataawa kala duwan oo aad isaga hor imanaya oo fara badan baa miiska iyo saaxada yaalla marka wixiina bal in la kala guro oo la kala qaado oo midba bal meesha ilahayd iyo duruufteeda lala eegto ee sawirkan culimmada kala duwan ee la siiyey ma wadamada kala duwan mise qaar baa qaldan la dabagaloo la qodaay mas'alo fudud oo sahlan maaha waana masalada ahmiyadeeda iyo waqtigeeda in la siiyo u baahan way intaana waxaan kaga gaabsan lahaa mawduucani ahmiyadda uu leeyahay aqaliyaadka iyo axkaamta la xiriirta in marar badan laga hadlo waqti badanna la siiyo masalada afraadan ka hadlaya waxaa weeye inaan tilmaamo ninkii baaxith noqon raba ama inuu aqriyo raba kutubtan baabkan laga qoray qaybo ka mida inaan idiin tilmaamooda tilmaami karo ilaa 6 kitaabaan ka soo qaato oo kuwa laga qoray ah kitaabka koobaad waa ilaa 3 mujallad weeye waxaana daawacday munadamadan la yiraahdo an-nadwa al-caalamiya lishabaab al-islami nadwada daawacday waxaa la yiraahdaa al-aqaliyat al-islamiyya dhurufuha wa alamuha muslimiinta laga awood badan yahay dunida daafaheeda ku nool duruufta ay ku nool yihiin dhibaatooyinka haysta iyo qayb dambe oo maxaa laga qaban karaa rag majmuuco baaxithiina kitaab buxuud badan oo kala duwan ay soo diyaariyeen way qaar Afrika ka soo diyaariyeen qaar Asia oo kala duwan bay ka soo diyaariyeen qaar Amerika ka soo diyaariyeen qaar Yurub bay ka soo diyaariyeen kitaabkaasi uma badna axkaamta waxba xalaal iyo waxba xaraam uma badna waa wadankan muslimiinta waa aqaliya imise muslimiinta aqaliyada dhayihiin tusaale ahaan hadduu ka hadlayo South Africa oo kaleeto wuxuu aqaliyada South Africa muslimkeed degan waa intaas xageebay u kala badan tahay meel heble inta wadanka dhaqaale ahaan xagee kaga jiraan siyaasad ahaan xagee kaga jiraan tacliim ahaan xagee kaga jiraan wadanka xuquuq intee leeg bay helaan maxay yihiin caqabaadka ugu badan ee haysta maxaa xal la soo jeedinayaa 3 mujalladi intooda badan arrimahaas ay ka hadlayaan kitaabkaasi waxaad ka faa'iideysanaysaa duruufta muslimiinta kala duwan waayo hadda South Africa aad ku nooshay waxaa laga yaabaa hadda ka hor maadan ku fikirin South Africa aad ku noolaatay bari waxa laga yaabaa aad ka guurto meel kale aqaliya muslima aad tagto hadda kitaabkan aqrido meeluhu ka hadlaya kamid tahay meesha u socoto xog iyo khabar baad ka haysaa xaaladda muslimiinta kitaabka labaad ee haboonta in la akhriyo waxaa weeye kitaab isna qayb khaas oo duruufta muslimiinta ka hadlaya kitaab la yiraahdo fiqh al-usrati fi al-muhajir qoyska ahkaamta qoyska iyo fiqiyaadkeeda meelaha muslimiintu ay qaxaya qaxootiga ku joogaan nin waxa qoray Maghrib iyo Moroccan oo Umraani la yiraahdo maadaama Moroccanka al-Umraani baa la yiraahdaa maadaama Moroccanku dhinaca Yurub ay ku badan yihiin wadamadan Belgium iyo Holland iyo Italy ay ku badan yihiin isagu Holland buu wuxuu u soo qaatay inka wax gaar ah in ka dhaxeeyaan baan u malaynayaa wuxuu qoray Holland dana mudajan wa kitaab la mujallada sana waa kitaab fiqiga qoyska wixii la xiriira tarbiyada carruurta haddii carruurta dawlad aad timaado ay dhaqaale iyo inkam carruurta la siiyo inkamka yaa iskale haddii labada isqabtaan oo midkood shaqayn jiro oo pension galo pensionka lacagtiisa labada qowaalid yaa iskale masaa'il badan oo ahkaamta la xiriira qof baa shaqayn jiray shaqadii uu ka tagay intuu shaqo raadinayo dawladda wax siisay hay'adihii haweentii baa shaqayn jirtay xoolaha ninku wax ma ku leeyahay haddii cayb la siiyo labada qoys biilkii reerka ma wada wadaagayaan mise ninka kaliya laga rabaa masaa'il saas oo fara badan wadamadan maanta caafimaadkii fasaaday labada isguursanaya inay soo baaraan caafimaad ma lagu qasbay karaa
masaa'il badan oo sidaas oo kaleeto oo qoyska iyo axkaamtiisii iyo la xiriira buu ka hadlayaa. gabar meeshan joogtaay nin hadduu rabo xagga inuu ka yimaado South Africa ka yimaado ama ninkii uu joogo meeshan oo gabadhu xagga ka imanayso guur beenbeena hadday sameeyaan oo waddanka in lagu dego iqaamad lagu qaato la rabo mas'aladaasi guurka macaqidmaya oo guur ma noqonaya mise noqon maayo waxyaabaha duruufuhu ay keeneen way si gaar ah masaa'ilka u faahfaahinaya baabka ninkii faahfaahin rabaay fiqh al-usrati al-muslimati fi al-muhajir الدكتور العمراني buu ka raadin karaa. kitaabka saddexaad waxa weeye kitaabka uu qoray ninka la yiraahdo محمد درويش سلامة ورسالة ماجستير جامعة أم القرى وهي هل مجلد وي وحان فيها أفر بقولي وحوغي بيتش وي وحال هذا في الأسرة الأقليات الإسلام فقه الأقليات الإسلامية في العبادة والإمارة والجهاد مسائل كعبادات كمشكلات كاهسته مسائل كمضح إمام طاعة على محواجبية جهاد كمحاكا لا قدبون وجهادك أحكام دي محا إياك كتابانية كسنا كتاب وكقرية أفر بقولي وحوري بيت ويوا مطبوع وجامعة من القرى طابع ذي وحكى له كميرة كتاب كالإرادة فقه الأقليات الإسلامية في الشؤون السياسية وزير ما لنا نقول كرا مدعوين ودن كقصاف كوكلا ما يصير شيء كرتا عيدا كمجري كرتا بويزي سردون ما نقول كرتا قاضي هذه الدولة دينهم مقعودة قاضي حقوق جنسية فسق يسمى فليا هذا مفتي مقعودة إن لا أطيع واجب مية مسائل ساس أو كليتو فربضان وشؤون السياسية كريه على قري إلى تدور بقوله بيتشوي سنة وحاقر من اللي يرادو سليمان محمد توبو الباك بالي هذا وجاب ماجستير مسوي دكتوراه بتكون الجامعة الأردنية وي بس أنا لقى قاطي وحكى كلام كميرة فقه الأقليات الإسلامية كتاب ليراهو وكلية الأوزاعي وبيروت كتالة يدنا الدكتورة لقى قاطي باكرة استغنى تقريبا تضرب قلو بيتشوي استغنى مسائل فربضا أنبوكها الله يا من هذا الباب يا علاقة الفردية للمسلم بغير المسلم في ديار غير المسلمين كتاب ليراهنا واستغنى الله بقولوا بيتشنا واترايو ولا الدكتور أحمد حسين آفترين ليراهو أوليه inaasi waa iska masaadir iyo maraajic ninkii masaa'il kaninu aqriyo wax badan ka ogaado iyo faahfaahintooda doonaya waa kutub uu raadin karo kutubta qaar iyagoo matbuuca maktabadaha laga helaa laakiin maktabadaha haddaynan helaynin qaarkood baad netka ka helaysaan iyagoo PDF ah baad netka ka helaysaan sida kitaabka ninka urduliga uu qoray Sulaymaan Maxamed iyo ninkan jaamacatu al-umur qura kay daabacday iyo labadaas oo kale bidaat iyo kan cumraaniga maghribiga ah iyo kan nadwada afartaba iyagoo PDF netka ka helaysaan ninkii raba inuu ka baarto way saladaasna afraadna intaasaan kaga bixiyo wixii intaas oo kitaab laga qoray oo harta hadda cishaha intaan la gaarin inaan wada dul maran soo koob ma dhici kartaa ma leeyahay oo nin walba jaanib gaar ah ka hadlayo idama dhici kartaa in aanu soo koobo aan soo wada dul maro markay ka hadlayaan masalada kale waxa wax ka tilmaami aqaliyadka muslimka marka la qaybinayo waxa la yiraahdaa Afrika dadka aqaliyad islaamiga lagu itlaaqo waa wax 80 ilaa 90 milyan ku dhow ama gaarayo u dhaxeeyo qaarna 83 bay sheegaan qaar 93 bay sheegaan qaar 105 bay sheegaan qaarna 110 bay gaarsiiyaan 83 110 waa farq weyn baa u dhaxeeyo aqaliyad islaamiga mafhuumka waxay ku salaysan tahay muslimiintii haba tira badnaadeen ee awoodda laga lahaa baa aqaliyo laga dhigay si Ethiopia Tanzania oo kale iyo Nigeria inta muslimiin baa u badan laakiin hoggaanka gaala iska lahayd markay tira koobiyada sameynayeen marka hadii la yiraahdo Tanzania Ethiopia Nigeria kaliya badal lixdameeye gaaraya inta kalena markii lagu haldhabeeyay dusha laga dul daro way fara badanayaan hindiya kaligeed waa 110 milyan ilaa 130 milyan weeye muslimiintu waana aqaliyadu laga tira badan yahay China 100 milyan muslimiintu way dhaafayaan laakiin ay la dhooliyeen mujtamaca dawladda ku dhex jiraan fiiri marka 100 milyan tiraahdo ay afay halkan timaado hadaba intaasoo dawlado Afrikaan Soomaa
haddana markii China dhex joogaan aad tiraahdo in yar bay noqoni wuxuu badni iyo yaraansho hadba inta xalabo cadadka tirada la barbar dhigu ku xiranta Orabo Yurub oo kaleeto ilaa Mareykanka marka la isku daro muslimiintu ilaa 70 milyan bay gaarayaan ahkaamtu intaas oo dhan bay saameynaysaa tusaale ahaan baan uga jeedayay masaa'ilka ay taabanaysa muslimiinta aqalliyaadkeedu kuwaas way masalada lixaad aan rabaa inaan tilmaamo qabla al-mas'ala al-akhira waqtigu baa iska soconayaa masalada aqalliyaadka waxay hoos gashaa ama taabata masalada masalatu diyaar waana masalada la yiraahdo daaru islaamin wa daaru kufrin masaladaas iyana kutub badan baa laga qoray masaladana waxaa ku lamaan oo iyadana aan masalatu al-aqalliyaat ka haraynin masalatu al-hijra al-hijratu min daari al-kufri in laga hijroodo masalada baa ahkaamu diyaar daba socota sadarta waxaan leenahay masalatu diyaar daaruhu way qaybsamaan daaru islaamin wa daaru kufrin qaar ba waxay yiraahdeen saayaan la dhihin daaru islaamin wa daaru kufrin cibaarada sax laga daayo oo maxaan dhahnaa daaru muslimiina wa daaru kaafiriin aan dhahnaa dhulay muslimiin leeyihiin iyo dhulay gaala leeyihiin ee dhul islaam leeyahay iyo dhul gaal leeyahay inaan dhihin kufrigu gaalnimo dhulay leedahay iyo islaamnimo dhulay leedahay masalada musamaha marka la isku hayo bilaash maaha waayo kadib si automaatiga waxaa la isugu qabsanayaa maxay tahay taariifka daaru islaamin maxaa la yiraahdaa iyo daaru muslimiina maxaa la yiraahdaa way kala duwanaan daaru muslimiina waa dhul ay muslimiin leeyihiin daaru islaamna waa dhul ay diin islaam leedahay way diinta leh iyo dadka leh waxba u dhaxeeya farqiga waa dhici kartaa qasab maaha laakiin way dhici kartaa waxaa la isku hayaa haddaba sida jamhuurtu u badan yihiin baynu iska mari jamhuur ahlilcilmi waxay ku tageen daaru islaamin waxaa la yidhaahdaa meel kasta oo axkaamta lagu dhaqayo ee saa'idka ee maamushaay islaam ay tahay xataa dadka u badanba gaaraha noqdaan hadday hoggaanka iyo xukunka muslim iska leeyahay muslimkana diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay uu ku dhaqayo meeshaa daaru islaamin weeye cadadka tiradu qiimo ma leh yaa badan ma muslim baa badan ma gaal baa badan qiimo ma leh cinda aljamhuuri daaru kufrina waxaa la yidhaahdaa meel kasta oo axkaamta lagu dhaqaya ummadda lagu maamulayaay aynan ahayn tii islaamka xataa dadka degan boqolkiiba boqol muslim ha noqdaane hadaa qowl ljamhuuri wey waana qowl akar ilfuqahaai ay qabaan wey taa haddaan raacno hadda daarulislaam ama maba jirto ama hadday jirto way yarta waa meel iyo laba daarulislaam ama maba jirto ama way yarta oo meel iyo labay noqon waxaa dunida muslimiintu ay degan yihiin aqlabkeedu boqolkiiba 99 daaru kufrin bay noqon halkana waxaad ka qiyaastaan dunida muslimka intee in la eg baa shariica iyo kitaab ilaahay lagaga dhaqmaa Asia lagu badannahay muslim haddaan nahay ka soo qaad Indonesia ma lagaga dhaqmaa maya dastuur baa lagaga dhaqmaa Malaysia ma lagaga dhaqmaa maya soo wad carabta soo mar afrika soo mar taa macnaheedu waxay noqon qowlka jamhuurtu bihada almacnaa daaru kufrin waxaa la yidhaahdaa meel kasta oo xukumka iyo nidaamka lagu dhaqee lagu xukumaayey uusan islaam iyo kitaabka ilaahay ahayn ciddii dooni ha deganaato ama gaala ha wada deganaato ama muslim ha wada deganaadaan ama ha isku jiraan culamada qaar ba waxay qabaan masaladu saas maaha daaru islaamin waxaa la yidhaahdaa meel kastoy muslimiin leeyihiin muslimiinna degan yihiin shacaa'irtii islaamkana wax badan ka muuqato aadaankii jumcadii jamaacadii ciidihii shicaarkii muslimiinka iyo xijaabkii iyo ay ka muuqato ee qasab maaha xukunka guud ee lagu dhaqayo inuu islaam noqdo waa qowl bacdu lfuqahaa ay qabaan wey
madhabka aad waxaa isugu dayay inuu tarjiixiyo nin la yidhahdo cabdiraxmaan ibn mucallal luwayxiq risaaladiisan la yidhahdo maajisteerka ee xayaatu lmuslimiin alghuluwu fii xayaati lmuslimiina almucaashira kitaabada la yidhaahdo uu aad isagu isugu dayay madhabkaas inuu bal meel mariyo qolana waxay yidhahdeen mar haddii sidaa aan idhaahdo laba mas'ala aan idiin kala qaada marka anu masalada tafaasiisheeda iyo tarjiixaad ma galayo laakiin laba masalo asaasiyaada inaad maskaxda ku hayso masalada markaad diraasaynayso ama aqrinayso ama cid ka hadlaysa aad dhegaysanaysa aan laba masalo ku siiyo masalada koobaad taqriirka ah daaru islaamin iyo daaru kufrin waa masala ijtihaadiya mas'ala nas maaha aayad iyo xadiid maxaa daaru islaam iyo daaru kufri la kala yidhaahdaa aayad iyo xadiidna midnana maaha ijmaacna maaha waa mas'alo ijtihaadiya ah oo xilligay fuqahadu ka hadlayeen darafkii iyo waaqicii ay ku jireen sidii loo qaybsanaa ay ku saleeyeen wey taa masaladaa weligaa madaxa ku hay masalada labaadaad madaxa ku haysaayo waxaa weeye markii darafkii aqwaashii fuqahadii mutaqadimiinta uu ku salaysnaa uu isbedelay oo dhacday dhul muslim lahaa muslimna degan yahay dib xoog in looga qabsado culimmadu ra'yi kale ay leeyihiin oo saddexaad baa soo baxayoo diyaartu inay saddex yihiina daaru kufrin iyo daaru islaamin iyo daaru murakabatun min daaru murakaba ah oo daaru islaamna aan la dhihi karin daaru kufrina aan la dhihi karin taana waxaad ku xasuusataan fatwadii sheekh islaam ibnu taymiya markay gaaladii xilligii tataarkii iyo magaaladii maaradiin la qabsaday sukaantuna muslimiin ahaayeen gaalana qabsadeen baa la weydiiyey maaradiin ma daaru kufrin ba mise daaru islaamin xilligaa muslimiinta lagu soo rogaal celiyee la jebiyey intii ka horreysay dhul muslim oo muslim maamuloo muslim degan yahay iyo dhul gaaloo gaala maamusho gaala degan yahay baa loo qaybsanaa laakiin dhul muslim lahaa oo muslim degan yahay oo gaala haysata ma jirin mas'aladan markay timid intii ka dambaysay waxaa bilaabatay aad inuu xoogaysto qowlka diyaartu waa saddex oo daarta muslimiintu lahaayeenee gaala qabsatay daaru kufrin meehee waa daar murakaba wey jaanib haddii laga eego xukunka iyo siyaadadana waa daaru kufrin jaanib haddii laga eega yaa leh oo yaa degan oo yaa ku noolna waa daar muslimiin wey marka daar murakaba wey aan dhahna waxaana mas'aladaas suuro geliyey taqsiimkii hore nasna ma ahayn ijmaacna ma ahayn nawaasisha cusub ee timideen markii hore wax lagu salayna in fatwadii ay ta'iirisay wax ka bedesho waa qaacido kaleo tagayur alfutya bitagayur الzamani wاlaxkaam bitagayur اlmanaati la yihahdo wey labadaa mas'alo inaad madaxa ku haysaay waa muhiim masaa'ilka markaad diraasaynayso taqsiimu daar taa aan kaga baxo ahamiyadda ay leedahay taqsiimka daarta in la qaybiyaayo wax badan ka dhihi maayo laakiin culimmadu kutub bay ka qoreen ikhtilaafu daarayn la yidhahdo axkaam ikhtilaafi daarayn laba daarood daaru kufrin iyo daaru islaam markaad ku nooshay ama la kala joogo axkaam badan baa ka dhalanaysa axkaamta badan ee ka dhalanaysa risaala jaamaca islaamiya lagu diyaariyey baa ugu dambaysay intaa akhriyey oo laba mujalladoo waaweyn oo ah ninkii kaatibkaa magaciisa ma xasuusto axkaam ikhtilaafi daarayn baa la yihahdaa oo masale ay culimmadu kutub ka qoreen ikhtilaafu daarayn axkaamta ka dhalanaysa taasaa sababtay in masalada aad looga hadlo istidlaalaad la raadiyo la isku qabta taasaa keentay masaladaan raba inaan kugu baraarujiye masalada la xiriirta waxaa weeye daaru kufrin marka la yimaado iyadana waa laba qaybood daaru xarbin wa daaru cahdin daarna waa daaru kufrin oo gaalo muslimka iyo iyaga dagaal ka dhaxeeya haddee waa gacantaa gaadhayi meesha la iska soo gaaro wey daarna waa daaru cahdin wa amaanin oo nabadgelyaad kula jirtaayoo heshiis nabadgelyaa idinka dhaxeeya sida tan aad joogtaan oo kaleeto oo hadda idinka calaaqada iyo daartan aad joogtaan idinka dhaxeeya calaaqatu cahdin wa amaanin in la isnabadgeliyo wey ood adna nabad gasho naftaada iyo maalkaaga cirdigaaga diintaada aad nabad gasho iyagana intaa ay kaa nabadgalaan haddaba axkaamu diyaarta markii saa loo qaybiyey daaru xarbin wa daaru cahdin
aqaliyaat alislaamiya masaa'ilka koobaad ee ka taabanaya waxaa weeye haddaad daaru cahdin wa amaanin ku nooshahay ama aad timaaddo oo min diyaari lkufri ah ood aqaliyaadkii sidan oo kala noqoto maxaa kaaga bannaan dhiigooda iyo xoolahooda iyo cirdigooda ma ku bannaan tahay inaad tiraahdaa waa gaalo oo subermarketyadeeda waa la xadi karaa bangiyadana waa la jabsan karaa ma bannaanta rag baa fatwooday haddii aad timaaddo markay masaa'iluljihaad timaaddo de nimankan maxaa kaaga bannaan ma yihiin kuwii ilaahay yidhi waqaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari kuwa idinku xigee gaalkaa kaga bilaabay iyaga ma yihiin mise ma aha qur-aanku axkaamta labada daarood dadkeeda inay kala duwan yihiin waxaa lagu tilmaamay suuratu lmumtaxina suuratu lmumtaxina baa lagu tilmaamay ilahi wuxuu kala qaaday inaan laysku eedeynaynin kuwa lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhimna waa mid kuwa qaataluukum fi ddiini waakhrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calaa ikhraajikumna xukun gaara la siiyey keliya waxaa muhimka u yahay hadda masaa'ilkaa tafaasiisheeda maaha waxaan ka hadlayo mas'alada diyaarta ee daaru xarbin iyo daaru cahdin loo qaybinayaay waa masalo calaaqa la leh aqaliyaadka islaamiga iyo qofka muslimkaa calaaqada ka dhaxayn kartay waxa uga baahan walidaalika qaarkood qoreen baan fi lcibaadaati walimaarati waljihaad kutub laga qoray oo aqwaasha culimmada iyo adilada la ururiyey masalada labaad ee la xiriirta masaa'ilka ida taabanaysa waxaa weeye masalatu lhijra alhijratu min daari lkufri daaru lxarbi waan garanay laakiin daaru lcahdi walamaani ma waajibba inaan ka hijroodo mise waxay ku xiran tahay diintayda iyo shacaa'irtayda inaan xor gudan karo iyo inaanan gudan karin baa loo kala qaadi aslan base masalatu lhijra min daari lkufri wujuubkeedii ma baaqiba cumuumka ahaa mise wujuubkii asliga ahaa waa la nasakhay qowlaani liahli lcilmi raxmat ullaahi calayhim labada qolo mid walba rag baa kutub ka qoray oo kutubtii wada matbuuca way taallaa laakiin waxaa laga yaabaa ninka aalibka yari hadduu hal araf iyo aqwaash iyo fataawo iyo kutub ay qoreen marto inuusan tan kala war buu haynin oo maalin maalmaha kamida suu u buubayo intuu kuwii kale ka hor yimaadaan waxyaabo badan lasoo hordhigo oo markaa uu gadaalo gurasho iyo madax xoqasho bilaabo marka hore masaa'ilkaasoo kale markii aad taqriirinayso baa la badiyaa akhriska oo waxa kala duwanoo dhan la akhriyaa si markaad qowl rajaxdo ka kale wixii ka iman doona iyo maxay jawaabtiisu tahay aad ugu talagasho waxaad ogtahay laakiin waxaad aniga geel waxaa nabi rasuul buu qoorgo'an maqashay adoo masaladiisi uu isaga haystay waxyaabaha ku talagelin haddii lagugu keeno markaa waxaa weeye bariiqaa kugu dhici mas'alada haddaba masalatu lhijrana waa masalada fiqiga aqaliyaadka way taaban oo waxay ka taaban haddaa daaru cahdin wa amaanin ku noolayd hijraduna kugu waajibbaa ayib haddaan idhahda hijradu waa waajib hadda xataa min daari lxarbi masaa'il nawaasil mustajidaa jira waxaa laga hadlayay daaru islaamin ha loo haajiro away daaru islaamkii loo haajiri lahaa iyada lafteedii wadankeesa ku aqbaliba hadda wadan kastaba sistamka nolosha nawaasisha mustajadada waxaa ka mida qof kastoo dunida socdaay waa inuu baasaboor wataa haddii kale maba safri kartidba baasaboor markaad wadatana wadan baad sheegatay ood ku abtirsatay wadanka kale muslimba ha ahaadee nin koyto oo yimid waktiga ku dhacayuun baa tahay nin yimid oo waktiga ku dhacayaa tahay de waaye baasaboor qaataya saan yeelaa haddaan iskaba tuuran wadankaa muslimiintu leeyihi isaga dhuunto birintii laysoo qabtaa jeel lay gelin haddii raadkaygii la helana waaba lay tarxiiloo diyaarad baa lay saari midda kale qof iyo labaa dhuuman karee ummad anoo malaayiina ma dhuuman kartaa waa masaa'il mustajida oo masalatu lhijra aan ka hadalno sax waa waajib laakiin de dadkii markaad amrayso waa hala hijrooda aad leedahay waa inay jirtaa meeshii loo hijroon lahaa xaggeen hijroonna haddii lagu yidhaahdo wallahi garan maayo laakiin hijrooda iyo anugu hijrada asalka xukunkeedaan idin barya markaad heshaan hijrooda waa kala laba markase masaa'ilkan hijraduna
haddii ay dadkii meelay u hijroodaanba ay waayaan oo aynan haynin halkooda hay iska joogaan oo aqaliyaadka fiqigiisii ha qaataan bay noqon. masaladaa wey masalada rabo juz'iyadaan rabo inaan idiin tilmaamo fiqiga aqaliyaadka. waxaan ku soo gabagabayn inaan idiin tilmaamo masaa'il badan ooan laftooda wada tilmaantooda ka wada gaarin oo sawir ka bixinaya masalada fiqul aqaliyaad inaynay daal muxaadara ahayn way mu'tamar iyo 2 mu'tamar iyo 3 mu'tamar keligeed u baahan tahay. masaa'ilka soo galaya waxaa ka mid a dadka aqaliyaadka muslimka ah xilal iyo jawooyin ma ka qaban karaan waddanka gaalada ay ku hoos nool yihiin. waddanku waa dowlad dastuuri ah. sharciga iyo dastuurka lagu dhaqmo alxukmu bigayri maa anzala allah. qaanuun iyo dastuur baa la raacaa. wasiir ma ka noqon karaa? maareeyo ma ka noqon karaa? maayar gobol xukumo ma noqon karaa? madaxweyne ma ka noqon karaa? maxaa iiga bannaan? masaladaas waa mas'alo laba taraf leh. haddii ay wasiir noqoto dee wasaaraddaada waxaad ku maamulayso horta waa bikayri maa anzala allah. markaad xilalka qaarkood gaarteed qabatana de waxaa kuu taalla alqasamu dastuuri baa kuu taalla in qaanuunka iyo dastuurkii lagugu dhaariyo wey. haddaad madaxweyne ka noqotana dee dastuurkii dalka iyo daacadnimadiisaad ku dhaaran. haddaad wasiir noqoto, haddaad safiir noqoto, iyagii iyo danihii gaaladaad mateli oo aad difaaci. arrinta sidaas ahi waman yaxkum bigayri maa anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruuna xaggeed geyn. gaalada markaad difaacayso oo masaa'ilkii tawalligii iyo walaayo walbaraa soo geli mayso. masaa'il badan oo qadarinta iyo culayskoodana wey. masaladaa marka laga hadlayo waa masalo waqti dheer keligeed u baahan. dhinac kale eg muslimiintii waa ku nool yihiin. haddaynan meelahan ka qaybgelin maalkoodii iyo cirdigoodii iyo dhulkoodii iyo diintoodii waa la bannaysan. xaqoodiina waa lagu tuman. wax kastana hadhow waa lagu samayn. daruuradu miyaynan bannaynaynin irtikaabu akhafi dararayn? miyaynan bannaanaanaynin? miyayna qaacidadu ahayn adaruuratu tubuuxu lmaxduuraat? anigu haddaan caajis ka ahay inaan xukun ilaahay ku dabaqo, inaan fitnada iyo fasaadka iyo dulmiga muslimiinta ka yareeyo, fataqu llaha ma statactum miyaynan gelaynin? najaashi miyuusan xabashi madax ka ahayn oo xukunkii ilaahayna ay ka diideen haddana madax ka siica? oo nebi yuusuf calayhi salaam dowladdii meliga kaafirka ahayd wasiirkii maaliyadda oo xilli adag dhaqaalo lagu jiro khitadii ay ku badbaadeen sameeyey miyuunan ahayn? intaasaa laysu waafajiyaa. waa masalo waqti dheer iyo lafagur iyo qaadaadhig iyo celcelis badan u baahan wey. haddaad warabtan caaw inaan maro ma mari karo. masalada labaadee taalla waxaa weeye imanaysa wadaa'ifka diiniga jago diineed dowladdan maga qaban karaa. dowladdan qudaad hadday magacowdo qaadiga sharcigii axkaam buu leeyahay. xukunkiisu waa naafid, fasaqiisu waa naafid. gabadhii weli loo waayo fa sultaanu waliyu man laa waliya lahu matala. ninka gaaladu ay ii magacaabeen qaadiga iga dhigeen axkaamtiisa sharcan maigu fulaysaa? isigu fuli mayso. sharcigan in hogaansama maigu waajibbaa? oo ninku idaa talaqaa wilaayatahu min alkaafiri, wilaayadiisu kaafir bay hoos tagtaa. ilahayna wuxuu yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila. masalada iyadoo sidaas tahay oo nabiyullaahi yuusuf wilaayadiisu soo meli ka sarreeyey ma amraynin oo kalama kulmaynin, dadkuna isaga ma raacaynin, oo aalu yacquub intay u soo doonteen xataa awaamir ma bixinaynin. ilahay markuu leeyahay kadalika kidnaa liyuusufa maa kaana liyaahuda akhaahu fii diini lmelik, markii la leeyahay akhaahu baa la yidhi walaalkii. dadkii kaleen kayd loo samaynina. yuusuf soomaaliya sijniga markuu joogay inii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri soomana qowmka markuu ka hadlayay xabsiga geliyey. waa masaa'il wadciga iyo darafka istinaa'iga ah iyo qawaacidda sharciga in la isku celceliyo oo la isbarbardhiga u baahan wey. masaa'ilka kale yaalla waxaa weeye baarlamaanaadkooda ma la geli karaa oo wax tashriicinaya oo dastuur samaynaya oo qawaaniinkii ilaahay aan ahayn dejinaya oo wax xalaalaynaya oo wax xaraamaynaya.
qofka galaysi iska daaye inagu qofku ma ku riixi karnaa maslaxada muslimiinta darteedo codkana nagu ridi karnaa dhinac haddaan eegno dee muslimiinta kayaankoodii iyo diintoodii iyo jiritaankoodii dan badan baa ugu jirtoo taa la'aanteed dee intii kalaa qabsanoo cagtaa lagu marin hala gala ninkii marka la yidhahdana meel baad ku riixday dastuur iyo qawaaniin la dejinayo mas'aladan maxay qawaacidda sharciga iyo adiladu keenaysaa waa masale iyadana sidooda looga hadlay masaa'ilka soo hosgelaya waxaa la mida axsaabtan is haysata ee shuuciga iyo kan yuhuudda iyo kan hantiwadaagihi iyo kan dimuqraadigihi iyo kuwan ma noo kala roon yihiinoo qaar isbahaysi gaara ma la geli karnaa si uu meesha ugu najooxo u qabsado mabdigiisa isaga u fuliyana garab iyo hil ma ugu noqon karnaa lirtikaabi akhafi dararayn iyo acdamu lmufsadatayn wa acdamu lmaslaxatayn intaan raacno waa masaa'il culimmadu ay ka hadleen oo maxaa diidaya hadduu nin yidhaahdo wuxuu keenayaa nabi madiine markuu tegay cala salaam quraysh isagoo la dagaalamaya soo taxaaluf heshiis difaac mushtaraga nimanka yuhuuda ayay lama gelin masaladu ma sidaan bay basiid u tahay masaa'il qaadaadhig iyo faahfaahin u baahan oo laga hadlay wey masaa'ilka soo gelaya waxaa ka mid a waddan baad joogtaa masaajidkan berri gaangis baa iska qabsan kara tabar ma lihin maxkamad muu dacwoon karnaa haddii xoolaheenni iyo meeshaadii dulmi lagugu qabsado maxkamad islaamna aan jirin maxkamaddii gaalada iyo taxaakum ligayri maa anzala allaahu intaad tagto oo dacwooto xaqaadii magu soo dhacsan kartaa dhinac haddaad ka eegto yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaquuti baa taalla dhinac haddaad ka eegtana suwar badan oo shabbaha oo xataa xilligii nabiga dhacay baa jira cala salaam muslimiintii xabashu hijrootay markii la raadsaday soo maxkamaddii najaashi intuusan islaamin loogama yeerin iyagana isma difaacin soo iyagana isma difaacin de taa tan maxay kaga duwan tahay dulmi bay iskaga difaacayeen ama dulminaan isaga difaac maxay kaga duwan tahay war masaa'ilkaas qaabka in loo kala guray u baahan tahay waa masaa'il laga hadlay fiqul aqaliyaad bay ka mid tahay waxaa ka mid a fiqul aqaliyaadkii dowlada gaalkeed ku hoos nooshahay wixii nidaamka maamulka ah ean tashriica ahayn inaad ateecda ma waajibba gaal amiira in la ateeca waajib noqotay ka warra adiga gaal baa amiir kuu noqday daacadiisuna waajibtay bilimaara walan yajcal allahu lilkaafiriina cala bni sabiilina daacadaasoo lama dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waatiicu rasuula wa uli lamri minkum idin ka mid ah muslimiinta waxaa ka mid a haddii la soo dejiyo andimadan muruurkaa ka mid iyo taraafiga inaad markii istaag lagu yidhi istaagta ma waajibba diin ahaanna kuma waajibba mise kuma aha andimo caafimaad baa la soo dejiyey cudurro iyo si looga hortago amarka dowladda iyo maamulka gaalka inaad qaadata ma waajiba mise maaha waa masale aqaliyaadka haysata wey oo wixii xukun sharci iyo diin ahaan in meel loo saaro u baahan masailkeen haysta waxaa ka mid a ama imanaya aqaliyaadka haysata markii dasaatiirta loo codaynayaa ka mid a dastuur baa la keenay labadan dastuur kanna waa gaal kii horena waa gaal mid baa muslimiinta u maslaxa roon kii maslaxa roona intay u codayaan kan gaalnimada halagu fuliyo ma dhihi karaan biikhtiyaarihim mise ma dhihi karaan sida annaga hadda kii mardhow nagu qabsatay bishii sideedaad sanadkii tegey ma la samayn karaa berri bay kan ka dhici kartaa meelo badan oo kale oo dunida muslimiinta joogtay aqaliyaadkaa qabsatay muxuu yahay xukunkeeda sharciga ma iska daynaayo oo kay iyagu noo doortaan haban noo daraadeen nag hana lagaga dhigaan dhahnaa mise shareecadu akhafu dararayn kolba mid hadda mid u nugnahay akhafu dararayn bay shareecadu noo ogoshahay waa masalo in wax badan la xeeriyo oo la lafaguro u baahan jinsiyadahan la qaadanayo kolba haddaad ku dhex nooshahay dastuurkii u hoggaansamayso jinsiyadahan la qaadanaya ka warran ee waraaqda lagu keenaya qasamulwalaa dowladda inaad daacad u tahay oo difaaca ka qaybgelaysa aad saxiixayso ma dhaqaaqi karo oo dan ma gudan karo oo cibaadaad iyo xaj ma aadi karo oo meella wax kama qunsan karo oo xataa haddaan hijro is iraado ma hijroon karo dhib baa iga haysta baasaboor la-aan baasaboorkiina baladaa ka sokaysa midda kale kollaba waan joogaa qawaaniintiina waa igu dabaqan tahay haddaan qaatana dhib waxbaa iga yaraanaya ama xuquuq dheeraadaan yeelan
haddii kalena dib unbaa igu jiro kollaba qawaaniinta igu socota maxaan sameeyaa waa masaa'il aqaliyaadka haysto dasaatiirta iyo qawaaniinta ka haysta wey waa masaa'il in la bisleeyo la qaadaa dhigo u baahan wey masaa'ilka u baahantii waxaa ka mid ah tacliimta iskuullada la dhigtaa meelo badan oo dunida ka mid a ilmuhu iskuulka markay istaagaan subaxii meel bay saf istaagaan hees calan baa la qaadaa heesta calanka qaar ka mida waxaa ku jira walaa waddanka inaad u hayso dastuurka inaad u hayso inaad ateecaysaa ku jirta sida normal annaga waddankan ka nimid ee Kenya oo kaleeta arday kastoo iskuulada dowladda dhigataa ay subaxii heesta calanku waxaa ka mida my pledge bule waxaan ku dhaaranayaa marka qaar ku xidhay my allegiance qasam walaa'i dhaartayda walaha bilmi dhaaranaya maxaa la sameyn ilmaha guryahan ku haynaa ilaa madrasada sameeya dhahnaba waa inaan soo soxina qaanuunkan ateecsanahay oo madrasada qaanuunka uu hoggaansamiyay banaanka duurka iska joognaa inaga waxba baranin mise masaladan daruura banaynaysa waa masala aqaliyaadkana haysata way oo u baahan lafteedu wax badan in laga hadlo masaa'ilka iyo masaa'il kale dowladda hay'adda ciidan ma laga noqon karaa sirdoonka ma lagu biiri karaa booliska magaalada ma lagu biiri karaa ee waddankan gaalada laf dhabar buu ciidanka iyo sirdoonka iyo boolisku yihiin oo la badbaadinayo ma la samayn karaa waddankii burbur hadduu soo gaaro dhaqaale taakulaynta iyo dhibka dhaqaale si uga bixi lahaa gurmadkeeda gaala badbaadinteeda ma ka qayb qaadan karnaa intaa waxaan rabaa inaan uga jeeda shay qorane waxaan uga jeedaa mawduuca fiqhul aqaliyaad caawa ka hadal aad tiraahdeen macnihiisu wuxuu ahaa intaasoo dhan wada dulmar oo wada qaadaa dhig oo mid walba masale kasta caawa keliya intaan cishaha la gaarin meel ku xir bay ahayd wixii intaasoo kitaab laga qorayna inta cishaha ka horeysa wada dulmar intaa waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan soo jeedinayaa mu'tamaraad baad bilowdeen mu'tamaraadkiina qaar ka mida ciwaankaasiiya hal mu'tamar laguma dhammayn karee qaybana ka dhiga sida masaa'ilkaas midba mid loogu bisleeyo anigana hadda intaasaan ku daynayaa dib waxaan idinku dheereeyeyna iga raalli ahaada sala allahu wasalam calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam جزاه الله خيرا شيخ محمود إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كيسها وقدره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إننا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسة ونكسن هاي نقوى أنفعه هذا الشيخ وحافظنا الله سيدان مودا يسألوه شيء هاي نفتيس إنه بروتك الجواب بوليس كإنا نقال له همان كبرلمانك هندي ده وطن كان الله إنه الله وحي قلان برلمانك بوليس كي قلان هذا waxaa jira dhaqaatiir waaweyn oo halkan ah oo qaarkood ay ku jiraan baarlamaanka koonfur Afrika wasiirada iyo wasiirka ku xigeenka ay ku jiraan waxay ku jiraan golaha tashriic ay ku jiraan laba bilood ka hor hadda waxaa dhintay qaadigii ugu weynaa xataa South Africa ay ugu magacowday qaadiga South Africa oo muslim ahaa oo annaga naftanada masaajidkan iyo Soomaalida marka codsaday inuu tababaro horta su'aalaha nafteeda ay ahayd baban inaad ka jawaabto waqtiga ma gali karaa mise lama gali karo الحمد لله شو قرنا موضوع السؤال يجاوب معي لكن فقه الأقليات كوحرر يصور أن نكبحيه مسائل كني ومسائل عرس وأنا مسائل وحبضا هي فاهم بدن إلا جري أباهن ومسائل خلاف كود وبدية إلا بقى قف يسكح جوايد بنان تهي ما بنان الله بقى مقليسان صدر مركب وحنكون علينا يا مسائل كان مسألة إلا واحد يباهيه ومسائل كان إن بدر كمدة أصل كي عقيدة إيمان كي دين كتابنا يا إسلام ما دين كتابنا مسائل كسيدة سواء يقرأ قروح بدنيا هاي وبنات ما بنانا تبي يصير بتشر تيا بتشر ويقرأ عروسته فقال هذه مسائل كان علماء وحبنا بيكا قرآن كتب تقريبا دين سو شيء وحبنا وعلى ديارين كرا بروحي مسألة الوقت إن لسيو صور كذيو إشكالات كذيو علماء وحي كير هذيني وحلو دليشانيو بمسألة مركي أصول العقدية إيمان تابانا يسو إن الله بسلايه يكون في عنده مركي وقت يقولنا لسونا الله بسلاين كرا بارتينيا جزاك الله خير وايا شيخ وكعذر دارتي لما السؤالات بان إن شاء الله تعالى شيخ ويدينينا ويسوقر عند دوينها
su-aasha koowaad waxaa weeye ruux muslin ah oo ku nool maxaan ku idhaahdaa South Africa ma ka shaqayn karaa bangiyada ribowiga ee halkana arday kale wuxuu hoosta kaga soo qoray waxaan bartaa IT-da hadhowna waxa uu leeyahay meel inta badan xaraam ah waxbarashada ayada nafteedu say noqonaysaa alxamdulilah horta su'aalahan way gaadeen sheekha rabina isaga wareejiyo su'aaluhu way gaadeen ala kulli hal mas'aladan banki rabawi ama ka shaqayn karaa intaan garanaya maya banki rabawi amal uma qaban kartid ribadii toos u galaya ama garab iyo kaalmo u noqonaya daruurana maaha oo qasab maaha qofku si uu risqiyo wuxuu cuna u helo inuu ribo iyo xaraan galo ribaduna sharcigeena tahriim dheeraad oo zaid ay leedahay ribada afar baa la lacnaday ninka cunay ee qaatay iyo ninka siiyey waa la lacnaday ninka u qoray ee xisaabiya ee baasha kala habeeyana waa la lacnaday labada markhaatiga kana waa la lacnaday cidii markhaati ka noqotana si kan qofkii uga qayb qaata weeye nuxurka markii afarta la isku daro qofkii lug ku yeeshay ee qayb ka qaata weeye cumuumkii qur-aanka aayatul maa'idana way tilmaantay oo wuxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani nacam
شيخ الله غفر إذا سؤالها سوى جوابه. بسم الله. سؤال شكله حليه يا شيخ صلى النبي عليه الصلاة والسلام الله يسكت في كرام واحد دليل يسمى قصة أروري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد qofku haddii uu xanuunsado waxa uu isku tufayo asalkiisu waa qur-aanka iyo adciyada iyo adkaarta weeye. adciyada ilaahay la baryayo, isticaadaadka ilaahay la magan galayo, aayadaha qur-aanka la isku aqrinayaa asal ah. nabiga dinka salligiisu calayhi salaatu wasalaam anigu waxa mamnuucaya garan maayo markii ruqyada la sameynaya in lagu dari karo, laakiin maanan arag ma xasuusto wax isaga si gaara ruqyo iyo waxa la isku aqriya uga dhigaya. laakiin waxaad ogaataa baabu ruqyadu waxa la isku aqrinaya hadduunan shirki ahayn cumuumku waa iska bannaan yahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa laa ba'sa biruqaa maa lam takun shirkan. waxaan filaya xadiidkii cawf bin maalik al-ashjaci inuu ahaa radia allahu canhu wa ardaah. waxaydana shirki ahayn dhib male wuxuu ilaahay kugu caafinayo, taasoo macnaheedu yahay tawqiif iyo cibaado maxdaa ma aha. wixii ilaahay kugu caafiyo ama salli ha noqdo ama kayrkii ha noqdo ood ilaahay subxaana wa tacaala kaga rajeynaysa inuu kugu caafiyo aan shirki iyo dembi iyo macsi ahayn asal ahaan inuu bannaan yahay weeye. laakiin inta aan gaar ahaan inay soo aroortay u arkay waa un qur-aankaas iyo adciyada iyo adkaarta isticaadaadka in qofkii lagu aqriyo. nacam. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخ. وحليه سؤال صدحات waxaan ahay ganacsade marka aan sakeynhayo ma waxaan kaga sakeeyaa asal maal oo xoolaha wixii hore aan ku soo gaday baan kaga sakeyn mise suuqul yawm oo xooluhu markaan waxa ay marahayaan ayaan kaga sakeeyaa. alxamdulilah taqyiimka iyo qiimaynta zakada maalku waa maalinta laga zakeynayo waxa ay joogto wey. qiimuhu korna waa u kici karaa hoosna waa u dhici karaa. badeecadii waana faa'iidi kartaa waana khasaari kartaa. haddii maalinka zakada la bixinayo qiimo ay joogto la garanayo, qiimaha maalinkaa ay joogto baa lagaga zaka bixinayaa xoolahan. haddii ay xooluhu kuu tarmeen oo kuu faa'iideyna dee xoolaha dheeraadka zakadoodii baa lagugu leeyahay. hadduu wixii qiimo jabay oo hoos u dhacayna dee xoolo jabay oo qiimo aynan goynin zakadii bixi laguma laha. saa darteed qiimaha asalka ahaa meehee waa qiimaha suuqa maalinta uu ka joogo maal kugu yahay adna kugu xisaaban yahay kaan baadna ku zaka bixin. wallahu aclam. جزاك الله خير. وحليه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شيخ آيات بل نو شرح. الحمد لله. aayadda waxay ka hadlaysay reer quraysh iyo nimankii gaalada ahaa ee nabiga calay slam la dagaalamayay. ilaahay marka wuxuu yihi wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. marar badan ba waxay ka dalbadeen haddii uu nebi yahay inuu cadaab soo dejiyo oo cadaab loo keeno. waxaa ka mid ah qaalu allaahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaaratan min aلsamaa'i aw itinaa bicadaabin aliim. haddaba ilah subxana wa tacala aayaddan wuxuu ku sheegay cadaab caam ah inuusan cadaabaynin. cadaab khaasa nacamha cadaab biljihaadi iyo bisayfi lmuslimiina wa yadihim lagu cadaabo taa waa baab. laakiin cadaab sama ka soo dega sidii umamkii hore oo iyaga cadaaba ilaahi subxaana wa tacaala waa ka rafciyey. laba cilana wasfina waa la sheegay wamaa kaana allaahu mucadibahum wa anta fiihim. intaad dhex joogto ilaahay cadaabi maayo oo cadaab ku soo dejin maayo. wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun. dee nimankani ilaahay ma inkirsanayn wujuudkiisa iyo jiritaankiisa, laakiin cibaadada in loo khaalis yeelay diidanaayeen. waxay lahayn jacala alaalihata ilaahan waaxidan. markay dhibaato badan ku dhacdana asnaamta intay hilmaamaan ayay ilaahay baryi jireen. kama marnayn ilaahay rumayntiisu yaynan khaalis ahaanine inay rumaysnaayeen. maadaama ilaahay ay rumaysnaayeen jiritaankiisa
keliya ay diidanayeen cibaadada in loo khaalis yeelay ilaahyada kalena laga bari noqdo marar badan bay ilaahay dembi dhaaf weydiisan jireen kacbaday aadi jireen markay dhibaato adag timaado asnaamta way halmaami jireen taasaa ka mida waxyaabaha aayaddu ay tilmaamayso inta ay sidaa yihiin ilaahay cadaabi maayo cadaab caam oo samada ku soo dejin maayo laakiin baydi lmu'miniina lagu cadaabi nacam jazaaka allah khayr sheekh wuxuu leeyahay accounti baan leeyahay bangiguna waa bangi ribowi ah oo interest xaaraanaha fuusha bangigana kama maarmo oo xoolaan kusoo ritaa waana la isdhacaa bangiga lacagta ribada uu saarahayo xageen geeyaa alxamdulilah mas'aladu intaan ka camimno lacagtan ribada kuu soo fuushay lacag xaaraana way adigu waad qirtay lacag xaaraana hadday ku soo gasho see la yeelaa qamaar bay kaa soo gashay qaadii sigaar bay kaa soo gashay ganacsi bay kugu soo gashay musuq maasuq bay kugu soo gashay laaruush bay kugu soo gashay isbaari iyo jidadgoy iyo xatooyay kugu soo gashay ciddii lahaydna ma garanaysa oo cidaadtiisa garan maysa laakiin xoolo xaaraana weeye maalka xaaraamta ah ciddii lahayd iyo cid loo celiyana aan la garanaynin waxaa iska leh masaalixda caamka ah iyo masaakiinta iyo fuqarada iska leh dad masaakiin iyo fuqaraasi masaalixda guud ee caafimaad iyo jidad iyo danaha guud madaarista iyo masaajidda iyo ha lagu bixiyo waxaa laga yaabaa erayga dambeey inaad dhibsataan oo maalkii xaaraamtahaa masaajidda maxaa lagala dooni ilaahay nabigu sooma dhihin in allaha tacaala ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban ma meeshii cibaadada iyo masaajidkii baad rabtaa lacag loo tariihiyo laga xaaraana masaajidka inaan keenno mid waad u keeni kartaayo haddii de qaybtaa musqulaha iyo qaybaha la gelinaya dhib ma laha dhismaha ma la gelin karaa qowlaani jamhuurta culimmadu waxay qabaan haa nacam waana laba arrimood koobanba wax fudud wey ma dhibadna waxay yidhahdeen maalkani adiguu xaaraam kugu yahay masaalixda guud xaaraam kuma aho masrafkeedii wey laa masaakiintuusan xaaraam ku ahayn walaa danaha guud buusan xaaraam ku ahayn adii markaad isticmaalayso maal khabiifa yahay meeshii sharcigu u talagalay haddii lagu bixiyo maal tayiba wey midda labaad masaajidku suu masaalixda caamka ha lagu bixiye inuu ka mid yahay loo ogaa meel daliil khaasa kaga soo reebay ma jiree oo bacdi culamaa baa waxoogay istixsaansaday in qaybaha dambe musqulaha iyo la geliyee meesha salaada iyo cibaadaadka aan la gelinin bay fuqahada qaarkood jeclaysteen laakiin jamhuurtoodu waa baneeyeen doctor cabaas axmed albaaz kitaabkiisa axkaamu maali xaraam doctorka afhaaniga ahaa kitaabkaasu aad aqwaasha culimmada ugu soo guriye uga hadlay waxaana ku timid su-aalo loo tari lacag laga helay ingiriiska oo masaajid burburtay ma loogu deeqi karaa masaajidkii waa burbursan yahay lacagna looma hayo mid loo tari ah nin isdhaafin rabaa masaladaasay ku timid baxiga asalkiisu wallahu aclam jazaaka allah khayr baaraka allah fiik laba su-aalood bay marka hore ahayn qoladana hoosta iga soo dhidhiibaysa qolada guddiga maxaan ku idhahdaa su-aalaha horta waxay dadweynaha ka codsanhayaan su-aalaha nacfiga u leh culimmada laga faa'iidaysan kara dadweynahana anfacahaya inay soo qoraan oo waxyaalaha yaryarka ah aan aad dadka u anfacaynin la iska daayo sida su-aashan oo kale ninkan wuxuu leeyahay sheekh nin xoolo xaaraana haysta ma lala shirkoobi karaa alxamdulilah masaladani waa masalo macruuf oo mashhuura weeye kitaabkan hadda sheegayana kutubta aad uga hadashay buu ka mid yahay qofka maalka xaaraamta haystaay marka hore waxaynu u qaybinaynaa laba sinfi sinfiga koobaad ma muslim baa mise waa gaal baan dhahaynaa haddii uu gaal yahay xoolihiisa xaaraantooda iyo xalaashooda laguma dirsan wax xalaala haddaad ka wada shaqaysanaysaan waad la shirkoobi kartaa wax xalaalana waad kala shaqaysan kartaa mucaamalaadkii nabiga iyo nimanka reer yuhuud ee muraabiinta dhex marayeyna xoolihiinna xaggeed ka keenteen lama dhihi jirin xaaska uu qabaaban la dhahaynin maxaad ku mihirsatay
xoolahana meeshuu ka keenay lama weydiiyo haddii aadan dad mucayan oo laga soo dhacay oo iskale aadan ogeyn. hadduu muslim yahay isna labaynu u kala qaadi, xoolihiisa dhanba ma wada xaaraanba mise maalkiisa min alxalaali waalxaraami buu ka kooban yahay. hadduu ninkan xoolihiisa wada xaraan yihiin oon xalaalba meel laba ka soo gelin waxba lalama wadaagi karo, waxna lagama qaadan karo, martiqaadkiisa lama tegi karo, hadduu wax ku siiya lama qaadan karo, daynaad kulahayd loogama qaadan karo, waxna laguma darsan karo. sababtoo xoolahan tasarufkooda ma leh, waa inuu ama ciddii lahayd mucayankayd u celiyaa ama masaalixdii guudan soo sheegna lagu bixiyaa. tasarufkiisu waa tasaruf min hayri lmaalik ah, maalka xaaraamtaa milkiyadiisana mucayankaasi ma yeesho. mar hadduusan maalkan lahayn jamiici tasarufihi wuxuu ku siiyey waxaad ka cuntay waxaad ku darsatay waa tasarufaad baatila wey. haddii xoolihiisu xalaal iyo xaraam isugu jiraan ma lala macaamili karaa, wax ma lagu darsan karaa? labaynu haddana u kala qaadi. waxaanaad kula macaamilaysaay hadduu caynulmaal alxaraam qaybtii xaaraantahayd yahay, ninka laba shaquu leeyahay, midna waa xalaal midna qaad buu ka shaqeeyaa. lacagtii qaadka ka timidood og tahay tan inay qaybtii qaad ka timid baa loo dhiibay, waraa tan un sii hoogu ku yidhi. caynta qaybta maalka xaaraamtaa cayntiisa haddii la garanayo lagulama shirkoobi karo, lagulamana macaamili karo hadday isku dhex jiraan oo xaaraan iyo xalaal isdhex yaacsan weeye. qowlaani liahli lcilmi wey, qolo tiri aqlabkaa la raaci, xoolihiisu hadday u badan yihiin xaaraam lalama macaamili karo, iyo culimo tiri maya, waraca xalaal miiradka waxaa weeye inaad iska dayso, laakiin xaaraan mahee waa iska karaahiya inaad la macaamilooto ama aad la shirkowdo. qowlkaasaa ila raajixa karaahiyada ah xoolihiisu mar hadday khaliid yihiin. wallahu aclam. jasaaka allah khayr. wuxuu leeyahay maxaan ku idhaahdaa sigaarka oo laga ganacsado muxuu noqonayaa xukunkiisu? alxamdu lilah. saad iyo sigaar miyaa hadda isku haynaa? sigaarka in laga ganacsada maxay tahay xukunkiisu? walow xilligan mucaasiriintu dambe ay isu khilaafeen, aniga waxaa ila tahay raajixina inuu xaraam yahay, sigaarka ganacsigiisu inuu xaraam yahay. wax kaleba haddaadan aadin waa dararkiisa wey. sigaarku waa sun uu qofka cabbaayey, sun buu cabbayaa. suntaasina faransiiskoo kale waxaa la yidhahdaa 60,000 baa sanadkii u dhimatay sigaar iyo cudurro ka dhashay. sharikado badan baa dandhow dad laga qaadanayaa, iyagii baa ku soo qorayay iska ilaali, waa sun khatar weeye, iska ilaali. meel kastoo dad isugu yimaadeen baa laga mamnuucayaa. dana waxaan garanaya diyaaradaha oo qaybta dambe sigaarka lagu cabo hadda maleh abadan. meelihii caamkaa baa loo diiday, qaadihii baa loo diiday. waxaa markay soo socoto meelo gaara in loo oodo ninkii sigaar cabaya xeradaa karantiilka aha gala la yidhaahdo. sababtuna waxaa la isla ogolaaday darar iyo sun caafimaadka iyo qofka dilaysa inuu yahay, xataa qofka urkiisa uu ku baxa dilaya. suntaa in laga ganacsado oo dadka lagu baabiinayo lagu laynayo intaan garanaya aniga ma bannaana. waxa laga shaqeeyana xaraan wey. nacam. jasaaka allah khayr. saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay dharka jidhkaaga sifaynhaya oo markaad xidhato jidhkaaga sifaynhaya ma la xidhan karaa? alxamdu lilah. dharka jidhka sifaynaya laba nooc weeye. qayb waa qayb khafiifa, de dhar baad qabtaa laakiin gudihii la arkayo, kaasi rag iyo dumar toona de lama xihan karo intaan garanaya. haddii qaybta la arkayo jidhkaaga rag markaa tahay ay qayb cawradaadii ka mida tahay. haddii shaati khafiifa uu yahay oo laga arkayo jidhkaagii, laakiin ilaa xudunta cawradaadii si kale ay u asturan tahay, haddaad iskaba dhigto qaar qabanaataa bannaaneed sooma. mid khafiifa haddaa xidhamiyey uga dari qulwala-aan buu qabay, qulwala-aan buu qabay, qulwalaha uga dari buy. qaar qaawanaan meeshii in la qaawiye ay bannaanayd mara jidhka sifaynaysa ay waxba u dhiimayso. meeshii markii horeba in la qaawiye bannaanayd, ama marka aad xiranayso cidda kula joogtaay wixii inay kaa aragtaadoon mara qabin ay bannaanayd, mara jir sifaynaysana waxba yeeli mayso. intaa dambe waxaan uga jeedo waa garatay maan u malaynayaa.
calaa kulli xaal hadday ay maradu mara jirka ku dhagan looga jeedo nafsul mas'ala weeyo hadday cawra muujinaysana ma bannaana haddii waxay ku dhagan tahay jirka qaybta lagu xiranayo cawra muuqanaysa aynan ahayna funaanad ciriiri aad igu dhaganoo garbahayga anoo ragga tilmaamaysa ay xaaraan maaha waayo garabka dhan haddaad qaawisaba xaaraan ma ahayn laakiin hoos inaan ku xidha sarwaal aad ciriiri u ah oo intiiba bannaanka mudutuushiya muuqaalkii keenayaay taas lama ogola calaa kulli xaal qaybta cawraadka ah waxaa cawrada tajsiidinaya ama jirayciisa laga dhex arkayaay ma bannaana nacam jasaaka allah wuxuu leeyahay saa'ilkan sheekh waxaan u malaynhayaa inay gabarhka waxay leedahay waxaan isqabnay nin baan isku guursanay khudbasiro muddo 1 sano ahaan isqabnay kadibna waanu isfurray hadda waan isjecelahay inaan isku laabanaan rabnaa maxaan sameeyaa horta su'aashan waa loo baahnaayo waad nafisteen waa yar cabirsanaydeen hadda israbtaan inaad isku laabataan waa isguursan kartaan laakiin kii hore ma jirin markii hore wixii dhacayna allah idinka dhaafo kan dambana reerkiinni iyo weligiinni mara oo sidii sharciga idisu guursada kii suuqa madow ahaa markii horena ma jirin dalqadiisuna ma jirto wixii inta xilligaa idin dhex marayna istighfaarna ilaahay weydiista insha allahu cafina allah ka dhiga nacam